guddiga golaha dhexe kaga jirta gobolada Sool iyo Sanaag Bari ee xisbiga talada haya kulmiye ayaa maanta munaasabad si weyn loo soo agaasimay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay taageero ugu muujiyeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici musharaxnimadiisa ku aadan xisbiga talada haya ee kulmiye shanta sano ee soo socota munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan golaha dhexe ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan golaha dhexe xisbiga talada haya ee kulmiye iyagoo si weyn u soo dhaweeyay musharaxnimada madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland qastiga uu narrator-ku sheegay oo ah inaanu halkan ka cilaamino oo ka sheegno musharaxiinta beesha harti u sharaxan xilligan doorashada moosinkan aynu ku jirno kuwaasoo ah labada musharax ee halkan fadhiya oo ah Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici inaanu intaa halkan idinku sheegno waa qodobkayaga ama hadafkayaga koowaad waxaan u yeedhnay bay ahayd guddiyadii beelaha Somaliland kaga jiray xisbiga kulmiye had iyo jeer goob doorashadeenu Somaliland waxay noqotay beelaha marjacan loo noqonayo deegaanna waa dhaafo waa beelay noqonaysaa mararka qaarkood sidaa darteed in aanu halkan ka iclaamino hortiina tirada codaynaysa tirada isku raacsan ee harti oo ah 230 xubnood oo ah xubnaha golaha dhexe 720 baa hadda halkan fadhiya inta kalena cudurdaar bay leeyihiin oo cudurdaar bay ku maqan yihiin sababta aanu sidaa u leenahay sababta aanu u sharaxanay aanu hadda anagoo isku duuban aanu meel u marinaynaa codkayaga waxa weeye inaanu abaal dhigano sallallahu alayhi wasallam baad goortu aamin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye shirkumada midab kasta uu leeyahay dadka isugu yimid waa salaamayeen assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inta ka bacdi waxaan maanta u qabanay xafladatan inaanu sheegno xisbiga kulmiye hadaan nahay xubnaha ka soo jeeda anigu qabiilkii waa tii laga tago asxaab la qaatay anu qabiil hore oo USB la yiraahdo baan gudoomiye lay doorto oo soo socda kaasa waxa u sharaxan kow Saylici oo anaga madaxweyne ku-xigeenka sharaxan taageertay ballan qaadeen inay u codeyn doontaan aniga oo ka wakiila iyaga aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waan u gudoomay waan idinka gudoomay haddii aanu nahay xisbiga kulmiye waliba mas'uuliyiintiisii gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenka ku jira hoggaanka gudoomiyihii golaha dhexe inaga waajib baa inaga saaran xisbiga dalka labadaba waa inaynu inagu noqonnaa tusaale wanaagsan sida loo tartamayo waa inaynu ka fikirnaa isku haynta wadajirka iyo horumarinta xisbiga ilaalinta xukuumadda u gargaarinta madaxweynaha howluhu ku culus yihiin inaan hawsha la qabano gabagabadina munaasabadan waxaa soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ugu mahadnaqay xafladan ay soo agaasimeen xubnaha ku jira golaha dhexe ee ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag Bari inuu haraa qabano si qurux badan oo sharaf leh u tartano oo xagasho lahayn oo sida gudoomiyuhu sheegay aan inagu dulqaadka mar walba muujino qurxinada tartanka xisbi ku soo baxay musharaxiintu inuu qurxino diyaarna inuu nahay mas'uuliyadda annagana saaran tahay sidii u dhici lahayd doorasho xor oo xalaal ah oo si fiican saaxad loo simeeyay lagu tartamo yaan diyaarnahay waa Idris Ismaaciil Cabdi Yaxya telefishinka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa.